kulan wanaagsan daawadayaal halkan waa Ilawareed News qodobada ugu waaweyn wararka Soomaalida aad daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona muxuu Xasan Sheekh Maxamuud ka bedelay halkii uu farmaajo uga tagay xiriirka Djibouti, Kenya, Ethiopia iyo Eritrea. Hogaamiyihii Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan iyo xubno kale oo ka tirsan ururkaasi oo la dilay. Ciidamada nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliya oo garoonka Aadan Cadde ka xiray Cabdalle Axmed Muumin. Gudoomiyihii degmada Qoryooley oo la dilay faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya dilka gudoomiyaha. Sidoo kale waxaad ku daawan doontaan wararka iyaga Xasan Sheekh Maxamuud oo dalab la xiriira kacdoonka Al-Shabaab u jeediyay culimada. Mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo gaaray furimaha dagaalka. Booliska gobolka Banaadir oo taliye cusub loo magacaabay. Iyo UK oo ku biiraysa dagaalka lagula jiro maleeshiyaadka Al-Shabaab. Cali Yar Cali oo wada hadallo uu kula jiro Villa Soomaaliya si uu markale halka uga soo muuqdo. Faahfaahin dheeraad ahna waxay ka soo baxayaan dagaalo culus oo ka soconaya gobolka Hiiraan. Sidoo kale waxaad daawan doontaan inta warkayaga uu socdo 22 qof oo Soomaali ah oo dumar ay u badan yihiin oo ku dhintay badda wadanka Giriiga. Qodobadaas iyo kuba kale ayaad ku daawan doontaan. Fadlan haddii aad ku cusub tahay Ilawareed News, subscribe saaro, like-tan inoo taabo si aad ula socotid wararka aan halkan soo gelino. haddii aad hore u joogday waad ku mahadsan tahay la socoshada Ilawareed News. Like-ta inoo taabo dhiirigelin ayay inoo tahay. ku soo dhawaada qodobadii oo faahfaahsan. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo laabtay xafiiska 15kii bishii May ee sanadan 2022. xilligaas oo Soomaaliya oo geeska Afrika dhacda waxay dhaxda kaga jirtay mowjado colaado ah oo deris ah. Dadkeedu waxay u qaybsanayeen in raacsan in lala saaxiibay Ethiopia iyo in Eritrea iyo in kale oo rabtay in la qurxiyo saaxiibtinimada Soomaaliya kala dhaxaysa Djibouti iyo waliba Kenya. Qiyaarkii dhexda ayaa laga qaaday bulshada. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ahaa macalinkii hindisay siyaasadda kala miirtay shacabka Soomaaliyeed oo lagu saleeyay in inta isaga taageersan la siiyo kaararka wadaniyada inta ka aragti duwana la siiyo ama loo arko inay yihiin dad cadow ku ah danaha ummadda Soomaaliyeed. Haddii aan u soo laabano xiriirka Soomaaliya ee dalka xuduud wadaaga iyo kuwa xiga, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dib loo doortay xilli ay kala tageen Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Soomaaliya iyo Kenya. Nidaamkii Farmaajo waxa uu doortay Ethiopia iyo Eritrea kuwaasi oo tan iyo 2018 ahaa qubalada siyaasadeed ee madaxweyne Farmaajo. In la tuuro Djibouti iyo Kenya waxa ay saameysay dalka, dadka, dhaqaalaha, siyaasadda iyo waliba tan arrimaha dibadda. Xujada ugu weyn ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u taalay soo laabashadiisa kadib waxa ay ahayd siduu Soomaaliya uga tiri karo cadaawadda lagu tuuray una abuuri karo saaxiibtinimo siman oo afartaas dalba ka dhaxaysa. Shaqada cilaaqaadka xoogan ee dalalka deriska ah waxa ay ahayd mid ka mid ah waxyaabihii ugu sahlanaa ee laga sugayay nidaamkii madaxweyne Farmaajo balse uu awoodi waayay. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu tagay Kenya isagoo aanan tagin Ethiopia, waxa uu tagay Eritrea isagoo aan tagin Djibouti. Waxay u muuqatay tallaabo lagu simay labadii saf ee abuurmay 5 sano ee la soo dhaafay. Xasan Sheekh Maxamuud iyo Eritrea ayaa isqaatay. Kenya ayuu la galay heshiis iyo waliba dib u hagaajinta xiriirka. Djibouti ayuu uga hoyday gafkii lagula kacay isagoo xitaa baarlamaanka Djibouti ka hor sheegay fariin cudurdaar ah u muuqatay. Ugu dambeyntii wuxuu si ka baaxad weyn sidii la filayay u garab dhigtay Ethiopia oo la sheegay inay gunaanadkii ay isqaateen kuna heshiiyeen in Ethiopia toos ay u soo gasho dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka Al-Shabaab oo ay wado dowladda Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaaminayo. Waqti xaadirkan Soomaaliya waxay heshiis la tahay Ethiopia, Kenya, Djibouti iyo waliba Eritrea 5 bilood ka hor. Intaasi ma aanay jirin. Siyaasaddii Farmaajana waa ay dhalin weysay in intaasi la isku keeno. Soomaaliya waxaa jooga ciidamo nabad ilaalin ah oo ay qaarkood ka socdaan dalalka deriska ah. Qaxooti badan oo Soomaali ah ayaa jooga dalalkaasi. Ganacsiyo baaxad weyn ayay Soomaalidu ku haysataa dalalkan. Waana meelaha ugu badan ay dadka Soomaaliyeed uga socdaalaan sida maalinlaha ah. Laakiin dowladdii hore way akhrin weysay mudnaantaasi guud. In la arko Soomaaliya oo heshiis la ah dhammaan deriskeeda
waxaa ugu dambeysay 2018 sababta uu dalkaasi u qaadi waayey tallaabooyin waaweyn sanadihii lasoo dhaafay waxaa qayb ka ahaa in lagu mashquulay dagaalka deriska ah oo bilaa ujeeddo ah ayay leeyihiin dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda ee gobolka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maadaama uu ku guuleystay inuu Soomaaliya ka tiro sumadda deriska xanaaqsan uu hagaajiyo cilaaqaadkii dhammaan dalalka deriska ahaa, hadda waxaa hortaalla inuu la yimaado aragti quman oo ay Soomaaliya uga faa'iideysan karto cilaaqaadkan la hagaajiyey, gaar ahaan arrimaha ganacsiga, fursadaha waxbarashada iyo weliba sidii ay kaalin buuxda uga qaadan lahaayeen dalalkani inay Soomaaliya iska dulqaado kooxda Al-Shabaab oo ah sababta ugu weyn ee keentay dib u dhaca Soomaaliya hadda haysta. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya hogaamiyaashii maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo xubno kale oo ka tirsan oo lagu dilay gobolka Hiiraan. Faahfaahin hor leh ayaa laga helayaa qasaarihii kooxda Al-Shabaab lagu geystay deegaanka Jicibow ee gobolka Hiiraan, halkaasi oo dagaal culus uu ka dhacay 2 maalin ka hor, balse weli ay ka socdeen howlgallo ay wadeen ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa warisay geerida saraakiil hogaaminaysay ciidankii shabaabka ee ka dagaalamayay deegaanka Jicibow, waxaana la dilay 20 kale. Ninkaas oo magaciisa lagu sheegay Raqiib Maxamed Xasan ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa hogaamiyihii Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan sida ay baahisay warbaahinta dowladda federaalka ee Soomaaliya. Hogaamiyihii kooxda Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan Raqiib Maxamed Xasan iyo 20 kale oo dabli ah ayaa lagu dilay howlgalkii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay kana fuliyeen deegaanka Jicibow. Ciidamada ayaa 2 maalmood ee u dambeeyay howlgallo waxa ay ka wadeen deegaankaasi ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dowladda Soomaaliya. Jab culus ayaa Al-Shabaab ka soo gaaray dagaalkii Jicibow. Deegaankaas ayaa 30 kiiloomitir waqooyi ka xiga degmada Buulaberde, waxa uuna dhacaa inta u dhaxaysa Buulaberde iyo Beledweyne, halkaas oo muhiim u ah Al-Shabaab. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa is abaabulay ee deegaanka ayaa Al-Shabaab ku weeraray Jicibow Axadii toddobaadkan, halkaas waxaa ka dhacay dagaal culus kadib markii dhinac kasta laga maray shabaabkii halkaasi go'doomiyey. Dagaalyahano webiga Dabaal uga gudbay ayaa la sheegay in ciidanka ay ka badbaadeen maalinkii labaad ee dagaalka. Haatan Jicibow waxaa maamusha dowladda Soomaaliya oo gacanta ku haysa. Waa hagaag. Ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ayaa shalay galinkii dambe garoonka Aadan Cadde ka celiyay Cabdalle Axmed Muumin. Ciidamada hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa xiray Cabdalle Axmed Muumin oo ah xogayaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SJS. Xog ay heshay Ilawareed News ayaa sheegaya in Cabdalle ay garoonka Aadan Cadde ay ku xireen ciidamada NISA kuwaas oo ka watay garoonka lana aaday meel aan la aqoon. Macadda sababta loo xiray Cabdalle mana jirto weli wax war ah oo ka soo baxay hay'adda NISA, hase yeeshee xariga ayaa yimid saacado kadib markii SJS ay Facebook soo dhigtay qoraal ay ku sheegeen in ciidanka NISA ay shalay weerar ku qaadeen xarunta SJS ee Muqdisho. Shalay galabkii abaar 12:30 ayaa kooxo hubeysan oo ka tirsan NISA uu horkacayay taliyaha saldhigga degmada Howlwadaag Shaqiib ayaa weeraray xafiiska SJS. Inkastoo shaqaalaheena ay ka marnaayeen xafiiska, saraakiisha oo 2 ka mid ah ay wajiyada soo duubteen ayaa u hanjabay deriska si ay uga qasbaan in ay furaan albaabkeena amniga ayaa lagu yiri qoraalka galabta ka soo baxay SJS. Ururka ayaa sidoo kale baraha bulshada ku baahiyay muuqaalo muujinaya saraakiil ay sheegeen inay ka tirsan yihiin hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya oo isku dayaya inay xoog ku furaan xafiiska balse lagu guuldareystay. Ilawareed News ma xaqiijin karto sax ahaanshaha muuqaalka iyo haddii ciidanka ay weeraray xafiiska ay ka tirsan yihiin hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya. Dhacdooyinkan ayaa yimid iyada oo shalay Cabdalle Axmed Muumin iyo madaxda kale ee ururka saxafiyiinta ay Muqdisho ku qabteen shir jaraa'id oo ay ugu baaqayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya inay ixtiraamto xorriyadda hadalka. Waxay ka jawaabayeen go'aan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta oo warbaahinta loogu sheegay inaanay baahin karin wararka kooxda Al-Shabaab. Ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ayaa cambaaray weerarkii lagu qaaday xafiiskeeda
waxayna uga baaqeen dowladda federaalka ee Soomaaliya inay baaritaan ku sameyso weerarka iyo weliba saraakiisha ku lugta leh weerarkan. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dilka gudoomiyihii degmada Qoryooley. Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax ka dhacay degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose kaasi oo lagu dilay gudoomiyihii degmadaasi Sayid Cali Ibraahim. Qarax ayaa la sheegay inuu ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso, wuxuuna ka dhacay meel aan ka fogeyn maqaayad u dhow buundada degmada Qoryooley. Wararka ayaa intaasi ku daraya in sidoo kale qaraxaasi ay ku geeriyoodeen qaar ka mid ah ilaalada gudoomiyaha la socotay. Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo kuwa ammaanka degmada Qoryooley ayaa gaaray goobta qaraxa ka dhacay, iyagoo halkaasi ka soo qaaday meydka gudoomiye Sayid iyo weliba qaar ka mid ah ilaaladiisa. Gudoomiyaha ayaa hogaaminayay degmada Qoryooley muddo dheer, waxaana suurta gashay in ciidan boolis ah oo deegaankaasi gacanta ku hayaan muddadaasi amnigeedana la ilaalinayay. Mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa cambaariyay dilkan. Qaraxyada noocan oo kale ah ayaa inta badan waxaa fulisa kooxda Al-Shabaab, hase yeeshee ilaa hadda ma jirto wax war ah oo ka soo baxay kooxda kaasi oo la xiriira qaraxii lagu dilay gudoomiyihii degmada Qoryooley. Allah u naxariistee. Booliska gobolka Banaadirna waxaa loo magacaabay taliye cusub. Taliyihii ciidamada booliska Soomaaliyeed Generaal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa maanta magacaabay taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir kadib wareegto goordhow ka soo baxday xafiiskiisa. Xijaar ayaa xilkan u magacaabay gaashaanle sare Mahdi Cumar Muumin oo ku magac dheeraa Macalin Mahdi, kaasi oo bedeli doona taliyihii dhawaan la dilay ee Farxaan Qaroole. Wareegtada ayaa lagu faray taliyaha cusub inuu guto waajibaadkiisa shaqo ee loo egmaday, iyadoo sidoo kalena la amray saraakiisha kale ee booliska inay la shaqeeyaan taliyaha cusub. Muumin ayaa ka soo jeeda Galmudug, waxaana maalmihii dambe aad loo hadalhayay in loo wado xilkan, isagoo taageero ka helay madaxweyne Qoorqoor iyo weliba mas'uuliyiin kale. Qorshahaas ugu dambeyn guuleystay maadaama maanta lagu dhawaaqay magacaabistiisa. Sidoo kale gaashaanle sare Mahdi Cumar Muumin ayaa horey u soo noqday taliyaha nabad sugidda Galmudug, isagoo ka soo shaqeeyay Dhuusamareeb iyo deegaano kale. Allah u naxariistee. Farxaan Qaroole oo ahaa sarkaal dhalinyaro ah ayaa ku dhintay qarax bishii hore ka dhacay deegaanka Basra oo uu tagay howlgal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab, waxaana geeridiisa si weyn looga dareemay gudaha magaalada Muqdisho iyo guud ahaan waddanka oo dhan. Si kastaba, taliyaha cusub ee maanta la magacaabay ayaa waxaa hor yaalla shaqooyin adag oo u horeyso wax ka qabashada amniga caasimadda oo haatan ah mid aad u liita. Mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa gaaray furimaha dagaalka. Wafdi ay hogaaminayso gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka Xildhibaan Sacdiye Salaad Samatar ayna qayb ka yihiin wasiirka wasaaradda macdanta Xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed, wasiirka haweenka Khadiija Diiriye, Xildhibaan Maxamed Xasan Nuux iyo Xildhibaan Maxamed Buraale ayaa iyaga oo ku labisan tuutaha ciidanka waxa ay gaareen degmada Buulabarti ee gobolka Hiiraan. Wafdiga waxaa garoonka diyaaradaha degmada Buulabarti ku soo dhaweeyay xildhibaan uu ka mid yahay Maxamed Ibraahim Macalimu, saraakiil ciidan, maamulka degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Qaar ka mid ah wasiirada iyo xildhibaanada gaaray degmada Buulabarti oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay diyaar u yihiin ka qaybgalka dagaalka dalka looga saarayo maleeshiyaadka Al-Shabaab, isla markaana ay tagayaan furmaha dagaalka. Waxa ay sheegeen in Al-Shabaab ay yihiin kuwa dhibaato ku haya dadka Soomaaliyeed, loona baahan yahay in hal meel looga soo wada jeesto si guud ahaan dalka looga saaro. Wafdiga ayaa lagu wadaa inay tagaan furimaha dagaalka ka socda, kuwaasoo u dhexeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka ah oo isku dhinac ah iyo Al-Shabaab oo dhinac kale ah. Dhanka kale, waxaa lagu wadaa inay kulamo kala duwan ay la yeeshaan saraakiisha hogaaminaysa dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, iyagoo sidoo kale booqan doona deegaanada lagala wareegay Al-Shabaab si ay u soo wareystaan dadka ku sugan deegaanadaas. Ciidamada dowladda federaalka ah oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa maalmihii shalay daraad howlgallo ka sameeyay magaalada Buulabarti ee gobolka Hiiraan oo ka dhacay dagaal socday in ku dhow 10 saac, waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac kala duwan. Gobolka Hiiraan waxaa ka socda howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab. Ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka oo loo yaqaan macawisleyda
ayaa isu furay wadooyinka sanado go'doonsanaa. Ugu dambeyntiina dowladda UK ayaa ku biiraysa dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Dowladda UK ayaa ku dhawaaqday taageero cusub ay u fidinayso Soomaaliya oo haatan wajahaysa dagaal ka dhan ah Al-Shabaab iyo abaaro baahsan oo ku dhuftay dalka kadib wadahadal qadka telefoonka ah oo ay yeesheen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo hogaamiyaha arrimaha dibadda ee waddanka UK James Cleverly. Xogayaha ayaa war qoraal ah uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku shaaciyay in UK ay qayb ka qaadanayso dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ayna ku taageerayso dowladda Soomaaliya oo haatan howlgal culus ka wada gobolka Hiiraan, Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray hadalkiisa in ilaa 50 milyan oo lacagta Ingiriiska ah inay ugu deeqayaan Soomaaliya, taasi oo lagu talagalay in lagu taageero shacabka tabaalaysan, gaar ahaan kuwa ay haysato cunno yarida, biyo la'aanta iyo weliba adeegyada kale ee caafimaadka. Dhankeeda dowladda Soomaaliya ayaa ka mahadcelisay deeqdan, waxayna sheegtay inay ku soo aaday xilli aad loogu baahnaa maadaama ay dalka ka jiraan xaalado isbiirsaday. Dowladda UK ayaa ka mid ah dowladaha reer Yurub ee taageeraya Soomaaliya, waxayna sidoo kale tababar ay siisaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Horey waxaa dowladda dhexe ay u shaacisay in howlgallada ka socda ay qayb ka qaadan doonto dowladda Turkiga iyo Mareykanka oo hadda ka taageeraya dhanka ciidanka xoogga. Soomaaliya ayaa haatan wajahaysa xaalad adag oo ka dhalatay dagaalka lagula jiro Al-Shabaab oo xoogaystay toddobaadyadii dambe iyo weliba xaalad bini'aadanimo oo ka jira gudaha iyo gobollada dalka.